ila dhugo qisadani cajiibka ah. Waxay ahayd gabar lugaha naafo ka ah, socodna aan awoodin. Wiil deriskeeda ah ayaa gabadhaani dabeecad iyo dhaqan wanaag ku jeclaaday, inuu mehersadana ka codsaday. Gabadhii markay farxadda hooyadeed u sheegtay, ayay hooyadeed ilmaysay, waayo horaa loogu sheegay in gabadhaani ma dhaliis ahaan doonto weligeed. Markaas ayaa hooyadeed tiri, waa qasab inaad wiilkan guurdoonka u sheegtaa inaadan dhalaynin ilmo. Gabadhii ayaa tiri, hooyo, habeen waliba markaan tukado ayaan Ilaahay ka baryi doonaa inaan hooyo noqdo. Hooyadii ayaa ugu jawaabtay, hooyo, maxaad saadaal iyo malawaal isugu maaweelinaysaa? Dhaqaatiirtii oo dhan waxay isku raaceen inaad madhaliis ahaan doonto weliga. Runta u sheeg wiilka, waxba ha ka qarin. Gabadhii way yeeshay talada hooyadeed, waxayna wiilkii u sheegtay in madhaliisnimo u dheer tahay naafanimada. Balse wiilkii wuxuu ku adkaystay inuu guursado xataa hadday tahay madhaliis naafa ah. Sidaas ayuuna ninkeedii ku noqday. Halkaas ayay gabadhii habeen waliba ku ducaysan jirtay markay tukato, eebbo waxaad iga qaaday nimcadii socodka ee nimcada hooyanimada ha ii diidin. Ducadan ayay 12 sano ku ducaysanaysay, kamana aysan daalin. Ilaahayna wuu u aqbalay ducadeedii. Gabar iyo wiil mataano ah ayuu ku arsaaqay. Sidaas ayayna farxad iyo hooyanimo ku heshay. Wabillahi tawfiiq. Eebbo naxariistaada insi.